maalin maalmaha ka mid ah macallin wuxuu u tafsiirinay ida shams ku wiirad markaas wuxuu yiri markii qoraxda la duuduubo oo xidigiina ay soo daataan ay soo dhacaan oo hashiina la madaleeyo oo wixii naf ah oo markaas zooj aan leen oo zooj la siiyo oo sida ay dhacdo tafsiirkaas uu akhrinay cunug ardayda ka mid ah wuxuu yiri macallin maalintaas dugsi ma la imaana cunugii wuxuu yiri maalintaas qoraxda duuduuba dugsi fasax miyaa siri marka cunugii آخرتي واحد لا ورما مو كجرة فصحي وعد فصحي صاص الجعيلة والله احتمال ما هو حين صار انت تيابك سنقولها معلمين الدكسية ده وأيوم حاجة لأنت بدن إلما وحي آذان إسكولكي آذان دكسية أنت يا إسكجوكتا إسكير وأكاد سد حدا عنو واقف نحفر فصلك وحنا لمريا ساعد هالساعة لمريا علمي هالساعة أنت الجارم بإسكولكي وردايان marka waan yaabanahay waa sanadahan dambe waa tiyaabka inuu saaran tahay marka arimahan waxaan rabay macallin kaleento kala tashto saan soo jiido lahayn ilmaha oo dugsiyada oo jeclaysiin lahayn marka fadhi dhan ima noqonaysay waa fasaxantiin baaska baxa xaafada iska aada galabta la soo laabtay insha Allah duu ilaahay hadda waxaan rabaa in macallin kaleento diriskay aan kala soo tashto arinka ninkana soo insha Allah وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويعود الهوى السلام عليكم معلم ورا حالك هذا ما شاء الله بشي ورا برواخو ايام حالك كويس ساسواي مع انه ايانتان ويابنها يعني dugsigii waa si macallimiin dugsi una ilmiye oo dhan waa iskuulkay wada aaday waxaan wax barno oo dugsi noo joogo aan balaanahay waalidkiina waa kula xisaabtamayeen marka arinkaas dhawadaan biri xaafadaha waa ku badan yahay macallimiintuna way ku badan tahay arinkaas adam ku haysta miskaligii leeyahay ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع runtii dugsigeeda haddii aad aragto hal saac aad timaado waxaad u malaysaa mawlac eber wax joog mal dadkii waxay ku leeyihiin iskuul jaamacad alwle waa yaabna anaga waqtigaayna runtii baadiyaasaan ku soo quraan quraanka markaan barto kadib la iskool galay dadkan waxaa si kasta wax uu sheegtay wax ma aragtay ma fahmooyaan haddaan markas oo gobolka shabeellaha dhexe degmada jawhar laga furay oo markas abi huraay la yiraahdo ayaa ma aragtay maan dhaweed aan tagay anaa yaabay marka niyo maamulaha hadda ma joogsan umaleynaa meelahaas ku maqaylaa waxa joogo macallimiinta kamid oo meesha soo wax bartay bal aan soo fiirino xaalkiis si aan maarta aan akhbaar maarta oo noogu sii arinta billahi kam tastatib al-quruf wa yabra'u juruhul kasir al-jarih wa yanshatu dhaka as-saqim al-alim وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر السلام عليكم وعليكم السلام معلم ما شاء الله أرداك وجهت به ما شاء الله أرداك وجهت به أنا دكسيين وأسكسو حرنا وأسكسو كلا تقني ما شاء الله marka aad waxaad ku amriyihiin iskool jaamacad hal saacadii ma dugsiyen wax jooma aad ku amrisaa u jiraan ardayda maxaa ku dhacay laakiin macallin waa qof argagaxsan ama qof oo waxa ogtaaba taajib amal maxaa ku dhacay ardayda ya bana farxad iyo iska daranbo dugsiga diinta macallinka waa bigsi daray hal qof jooma la marka qaabkii uu soo gashay wax jooma la wala waa horta arinkaas la yaabay ila noqotay marka aan soo yaabi kadib waa macallinkii uu yimid macallinkii anas bigisi daran yahay kadib wuxuu sir macallin halkaan soo fiirinayna dugsi marka imaadana waa yaabay ilmahan san u joogo marka maxaa sameys macna iskuulka uu aado waa ilmaha maxaa cilad idin haysat iskuula mise ciyaalkii yaa dugsi imaanin iskuul jaamacad waa ya bana anigu la dhibi iskuul hal saacadii wax markiis macallin hal mid sameynaysa cunuga iskuulka marka uu tago
maxaa la siiyaa maxoo oo ku jeclaada dugsiin maxoo ku nacay labadaas midna kala ogaano cunuga haddii iskuulka la geeyo oo tago mala tumaayo macalin ul male hadduu cashir khalda xataa lama tumaayo sidoo kale waalidiintan waxay ka qaataan kaalin mug leh markuu cunug iskuulka aadayo shaatiga cadka waa loo dhaqaa waa loo nadiifinaa haddana waxaa kaloo la siinaa 1,000 ama 2,000 oo bareek ah wiilkii kaloo dugsiga aadayo 1,000 iskaba daaye xataa mararka quraacdiyaa la siinaynin marka cilada macallimiinta kaliya ma ahane gurigan way ka haystaa waalidkiin way ka haystaa marka macallin anaga waxaan ku jirnaa laba loolan waxaan la dagaalameynaa ilmo yar yar ah iyo waalidiinna la dagaalameynaa iyo bulshadii oo hadda aan ku dhex jirno zamanka hadda aan taaganahay oo aad loo jecel yahay iskuulkii waxyaabihii kale oo aad loo jecel yahay hadda i war marka ustaad macallin hadda i war marka xalka muxuu yahay in ilmaha aan ku kasba karno iskuulkaas aan ugu reebo karno bal fikirkaada hal wax ka dhex anigu ku darayaa ما شاء الله horta sida u sheegto wax jira waay cunug oo maxaa ahay jaabka wax loo gelinayo oo dharkii loo hagaajinayo oo maartay isoo qurux badan oo labisan guriga soo baxay barfuuna loo marina ما شاء الله ما شاء الله dharka loo feereeha ma talaabada iskuulada ay qaad anaga in qaadno oo tartamo iyo maartay abaal marin aan ku siinayno kale qaabkaas in bilaawan waay oo maartay iigan markaas ay tartanka ardayga ku guuleysto abaal marin u qaato oo waxyaabo xaq uusan ka helaynin dugsiga aan ka bilaawan qaabkaas ila qaabkaas hay macallin qaabka fikirka waa sax horta macalinka waa si fiican u hadlay arrinkaas haddaan sameeyno waxaa laga yaabaa marka ilmihii in isbedel ay ku yimaadaan marka bal aan tijaabina arrinkaas hadduu ilaahi yiraahdo okay marka fikirkii aan kusoo gonaanudi lahaa warka wuxuu yahay cunuga dugsi wuxuu ku nahay usha iskuulka lama tumo hadduu soo daaho albaabkaa laga xiranaya kaliya laakiin hadduu dugsi soo daaho waa la garaacayaa wuu cabsanayaa cunugaadu mar labaad oo soo daaho ushaasoo ka baqaya oo noqonaya sidaa aaweed marka waxaan la dagaalamayna usha aan yarayno ilmaha aanan garaacin ilmaha markuu mar labo soo daaho mar saddexaad soo daaho marka afaraad kaliya loo nasteexeeyo wax canaan aan afkana loogu daro usha kaliya aan ka yarayno taasi haddii aan samayno usha aan ka yarayno waxaa xaqiiqa ah ilmihii inay dugsi ay jeclaanayaan qur-aankii ay jeclaanayaan oo kaal arag ay noqonayaan birita adigu ay macalinka ay ka soo hormarayaan dugsiga waqtiga ay soo ilaalinayaan kaliya ushaas ayaa muhiim noo ah ina ushaas aan yarayno ama usha dhanaba iska daayno caalamka horumaray maanta leesma tumo ilma lama garaaco ilma marka in un tartiibino oo usha aan ka khafiifino fikirkaas bal ka waran taasaan kusoo gonaanudi ما شاء الله ما شاء الله واتي أن كلها مكتب مركز كان معلمين جوكت أو خفرت له واتي أن كلها مكتب وحتى دوا واتي أن كلها مكتب وحتى دوا أنت دوا أنا مقنع وفرصة أن كهلني ما شاء الله هذه في عن تفكر في عواي هذا كده وحن قد قال دكسين بحسما معنا إن دكسين بحسما هذا كده وكوك شنينا macalinka wax yar weeydi arrinkaas muku dhaqaaqay asiga ma sameeyaa arrinkaas والله أرنكاس أنت بدن بنت وحرانة أنت بدن مسمى لك مرة خار ويدعها ما شاء الله تهذا كذا كلام مالها كميت أهد معلنا والتفسيرين هاي إذا شمس كويرت مركزه وحويري مركي قرح على ضوء وحدقينا أي صوت داتان أي صوت دعان أو هشينا لما ضليو أو وحي نفقة أو مركز زوج عنين أو زوج لسيو أو سيدا أي دعوه تفسير كاسو آخرين هاي عنق أرديدا كميت أهد وحويري معلم maalintaas dugsi mala imaana cunugii wuxuu yiri maalintaas qorraxda duduba dugsi fasax miyaa siri marka cunugii aakhiradi waxaad laga warmaa ma ku jira fasaxa u cad fasaxa saas u jecel marka cunugii fasaxiina in xoogaa loo badiyo oo uu soo dareemi karo mar loo dhaxgeliyo khamiis loo dhaxgeliyo oo fasaxan mar la siiyo mar maskaxdiisa loo qaboojiyo oo maanta dhan aan pressure kala saarin arintaasna waa muhiim cunugaas marka aqligiisa iyo fikirkiisa oo ka hadle waana wax jiro marka waxaan ku soo gonaanudi lahaa ilma in usha laga yareeyo oo aad loo tartiibiyo fasaxooda marar qaar loo qafiifiyo marka insha Allah macallin sidaas isku ognaayaan soo xeeraya hadda marka والله معلنك ما شاء الله runtii waa arin maartay jirta oo sax aan la dhaliilsan karin marka macallimiinteena waxaan soo dardaarmeynaa fikirka aan ka helnay markaas kan inaan meel marin insha Allah hada bila tawfiiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.